khudbad cajiib ah oo uu toddobaadkan jeediyey madaxweynaha da'da yar Ibrahim Traore waxa uu ku karbaashay madaxda Afrika oo uu ku tilmaamay in gacmaha ay kaga xiran yihiin silsiladaha gumeystaha oo uu doonayo inuu ka jabiyo. waxa uu ka hadlay wadamadii Afrika ee khayraadka iyo macdantoodu uu dhoofsado reer galbeedka. waxa uu tilmaamay sababta uu afgambi ugu qabsaday dalka Burkina Faso. khudbadiisa taariikhiga ah oo socotay in ka badan 10 daqiiqo waxa uu ku bilaabay qaaradda Afrika waa ay dhibaatootay in badan ilaa iyo haddana waxay la dhibaatoonaysaa gumeysi. Afrika waa boqortooyadii adoonsiga ayuu yiri isaga oo ka hadlaya wadamada reer galbeedka. waxa uu yiri sidan ayay noo arkaan oo ah inaan nahay dad loo abuuray inay iyagu u adeegaan. waxay noo arkaan Afrika inay iyagu leeyihiin dhulkeenana inay leeyihiin xataa saliidda iyo khayraadkeena inay iyagu leeyihiin ayay aaminsan yihiin. marnaba ma aysan bedelin fikirkooda ilaa maantadan la joogo waana wax laga xumaado ayuu yiri Ibrahim Traore. waxa uu intaa raaciyay markii uu gumeystuhu tagay lixdamaadkii waxa uu nooga tagay waxa aan maanta ugu yeerno Slaves of Salon oo uu kala jeedo madax aan daacad ahayn oo u shaqaysa gumeystaha. waxa uu yiri waxay sameeyaan wax kasta oo uu faro gumeystaha. waxay xadaan dalkeena waxayna dhacaan hantideena. haddaba ma taqaanaan kuwaasi ayuu yiri isaga oo ku tilmaamaya Slaves of Salon. waxa uu yiri waa shakhsiyaad aan sharaf ku dhex lahayn dadkooda anshax iyo bani aadannimo toona ma laha. waa sida uu ku tilmaamay Ibrahim Traore isaga oo khudbadiisa sii wata. waxa uu yiri marka aan soo qaadano tusaale ahaan wadanka Niger wax ka badan 40 sano ayaa wadamo shisheeye ay iska urursanayeen macdanta ay qaniga ku yihiin reer Niger. wadamada shisheeye oo uu kala jeedo Faransiiska waxa uu yiri waxay macdantaasi oo ay ka qaadaan Niger ay tamar kaga dhaliyaan gurigooda Paris iyo Ottawa si ay u iftiimiyaan halka ay mugdi tahay Niger dadkeeduna ay u dhimanayaan gaajo. markii aad aado wadamadeena waxa buuxa khayraad dabiici ah oo aan adduunka kale laga helin sida saliid iyo shidaal oo ay u sii dheer yihiin dahab iyo macdan laakiin xataa ma ifin karaan wadooyinkeena baahideenana kuma filna. sababtu maxay tahay? taasi waa sababta aan u go'aansanay inaan sameeyno kacdoon oo aan awoodda dib ugu soo celino gacanteena ayuu yiri Ibrahim Traore. wali adoonsigii kama bixin Afrika waxaan u imaanay inaan silsilada ay ku xiran yihiin aan ka jabino dawladaha walaalaheena ah ee Afrika. hogaamiyahan da'da yar isaga oo tilmaamaya reer galbeedka waxa uu yiri waxay noo soo direen calooshood u shaqaystayaal iyo kuwa tababarayaal ay ugu yeereen laakiin dadka Afrika waa ay fahmeen mar kalena ma awoodi doonaan inayna adoonsadaan ayuu yiri. waxa uu intaasi raaciyay dadku waa ay soo jeedaan waana u dagaalamayaan maanta mustaqbalkoodu. ilaahay ha nagu garab galo hawshan ayuu ku soo gabagabeeyay khudbadiisa taariikhiga ah.